beelaysan maamullo beelaysan barlamaan beelaysan chain reaction wax la yiraahdo kiimikada lagu yiraahdo yaani beeshii waxay saabtay dalkii oo dhan nooc kasta oo shaqo ah dhaqaalihii bay gashay dhaqaale beelaysan weeye sida tacliintii bay gashay tacliin beelaysan weeye marka sidee mushkiladdu hadda waxa weeye xisbiyada tirada badan oo multi party system-ka ah oo dastuurkeenu noqonayo sidee looga saaraa waxaan qabaa su-aashu inay tahay sidee looga saaraa xisbiya beelaysan waayo meesha aanu qabiilka uga cararaynay waxay ahayd 30 sano aynu qabiilka ku noolayn oo siyaasadeenu beelaysnayd oo muxuu ahaa dawladeenu beelaysnayd oo keentay chapter 7 inaan gallo yani hadda dadka Soomaaliyeed waxay u haystaan inaan dawlad nahay dawlad u yaalbaan chapter 7 baan ku jiraa ciidamada ajnabiga dalka jooga secretary generalka representative baan xukuma waad ogtihiin meel hoose wareegaynayo dawaynu ismoodsiinay laakiin in real terms sida xaqiiqada ah markii dawlad laga hadlayo adduunka sida loo yaqaano waxaynu ku jiraa chapter 7 sab dawlad baynu nahay marka sidee xisbiyadu tirada badan oo hadda dhashay aysan u aadin dariiqii aynu u baranay 30 sano ku soo jiray oo ahaa siyaasad beelaysan waad ogtihiin meel walba oo dalka ka mid ah caasimadda ka bilow ilaa meesha dalka u dambaysa wax walba waa beelaysan madaxweynayaashii ra'iisul wasaarayaashii wasiirada iyo haddii la kuriyo baarlamaanka kulli waa beelaysan beel baa lagu qaybsaday afar beelood iyo bar wax adduunka laga dhaqmana ma socono weyn waxay keentay marka wax la yiraahdo activity trap management-ga waxa weeye markii Soomaaliya aan ku fasiro waxay la mid tahay dabar hawleed hawl baa ku jirta waa dabran tahay waxa ay haysataa inaad shaqo qabanaysid waxaad sameynaysid oo barduus gareynaysid male hore u socon maysid waxaad tusaale ah 2020 ha ma 2000 markay ahay taariikhdu shirki carta dadkii joogay baan ahaa waxa lagu heshiiyey in qabiil lagu dhiso wax laakiin maalinta la doorto madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiir iyo baarlamaan ay ka gudbiyaan dalka qabiilka nasiib daro dadkii awsha loo xilsaaray ilaa maanta yani annaga ka soo qaad baarlamaan dadban baan hadana ujeedadu ma aha qabiilkaaga inaad u shaqeysid marka lagu dooranayo asaas dawladeed inaad samaysid xildhibaan Zakariya waa fahna cilada waana u jeednaa ciladu waxa weeye waxaan rabaa sidee marka lagu heli karaa nidaamka axsaabta badan oo aan beelaysnayn halka aynu ka bilowno marka waxa lagu heli karaa مثلا example baan ku siinayaa annaga xisbiga garsoor 20 xisbi baa jiray markaan sameeyay waxaan soo jeediyay 10 xisbi inay israacdo oo laba xisbi kaliya aan noqono nasiib wanaag 10 baa annagu isku helay magacyadii halkaas aan iska dhignay waxaanu nidaan qorro magac qof walba magac qor warqadda oo horeysa qofkii soo bixiya yaan la baxaynaa garsoor baa noo soo baxday waxaanu noqonay dad min loo yacdo ilaa libooye ka kooban sidaas baa loo baahan yahay xisbiyada waxa loo baahan yahay inay isku biiraan saddex xisbi ka soo baxaan iska daayaan muxuu ahaa qaabkan beelaysan oo xataa 68 iyo 60madii ku jiray saas oo kale u beelaysnaayeen sababta dawladda Soomaaliya u shaqeyn weyday ee dimuqraadiga ahayd oo waliba Afrika dimuqraasiga ugu horeeyay baynu hadda ogtiin meesha hal qof lagu kala helay bay ahayd muxuu ahaa madaxweynenimada Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Aadan Cabdullaahi Ismaan Allah aad u maasantaa waqtiga ilaalinayna waxaan rabaa baaqi inaan siiyo waxa ay hadeertaan ka sijilin yihiin guddiga doorashada waxayna mareen qaybtii koowaad oo ahayd in ay geeyaan shuruucdooda iyo qaab dhismeedkooda iyo gudbiyaan qaybta labaad marka ay ka soo baxaanna la siiyo shahaadadii rasmiga ah la siiyo marka waxaan haddii guddiga uu si fiican u shaqeeyay dadka hadda xisbiyada hadda jira waa xisbiyan hadhowto u bedelmi kara xisbiya rasmi ah u bedelmi kara maarta in la yiraahdo xisbiyadan ma leeyihiin iyo malahan ma u maleynayo in lagu go'aamin karo dad meel iska taagan su'aal la weydiiyay jawaab ay ka bixiyeen maarta waxay u baahan tahay laba waxyaabood ama guddiga doorashada oo dib ugu noqda sameeya maxaan ku radaa qiimeyn sameeya
oo ka soo saara warcad oo aan ahayn qarsoodi aan ahayn meelaha laga sheegayn laakiinse ku salaysan daraasad ay samaysay waxaa kaloo iyadan macluumaadkaas laga heli karaa xarumahan tirada badan oo hadda dhashay oo jira inay cilmi baaris sameeyaan ayagana cilmi baaristaas waxaa ka soo baxa lagu saleeya markaas la yidhaahdo maanta meeshay taagan yihiin waa meeshaas la dhihi kara maartay wixii ka sokeeyay waa qof iyo ra'yigiisa iyo sidii la tahay maartay adiga ra'yigaaga hadda sidee ku leeyihiin axsaabtan aniga waxaanba aan aaminsanahay axsaabta samayntooda waxay iridda u furaysaa in laga qayb galo siyaasadda laga qayb galo wax kastoo hadda ay yihiin dad badan ciladay u yeelaan waxaa la sheegaa in ayan u bislayn inayna axsaab rasmi ahayn aniga waxaan qabaa qofkii maanta is soo taagay is ururiyey oo damcay inuu xisbi sameeyo waa qof ay ka go-an tahay inuu siyaasadda si rasmiga uga qayb galo hadday kuwan xun yihiin dadka aaminsan kuwan kuwa ka fiican inay jiri karaan cid ka hor joogsatay lama arko sharci u diiday ma laga hadlaayo laakiin tabar ahaan iyo capacity-gooda marka la fiiriyo xumaantaan sheegayna waa capacity-ga wey aniga waxaan qabaa waktigan xaadirka ah oo la jooga haddeertaan dalka iyo doorashadiisa iyo xisbiga waa isku xiran yihiin waxaan qabaa in bilow ay u tahay diyaar garow xisbiyada ay hadhowta door fiican ay ku ciyaari karaan inta ka sokaysana ay is abaabuli karaan mowqifyada ay ka qaadan karaan siyaasadda iyo waxa jiraana ay door fiican ka qaadan karaan laakiin markaad sheekooyinkan la yeelanay dadka axsaabta ku jira waxaa badiba la tilmaamaa axsaabta haddeertaan jira inaynan sifihii lagu yaqiinay axsaab siyaasadeed inay ku yar yihiin maarta oo ay u badan yihiin dad maxaan ku dhahdaa la yaqaano oo maxaan ku dhahdaa magac leh ururo siyaasadeed oo ay hogaaminayaan marka badiba waxay ku dhisan yihiin qofkaas iyo jiritaankiisa badiba hormuudka u ah aada iyo aada waa umahadsan yihiin ka qaybgalayaasha saaxiibaday ah iyo dhegaystayaashaba dabcan waxaan isleeyahay horta qodobkii hore oo dee axsaabta siyaasadda ahaa inaan la bislaynin marka haddaan hadda aadno extension iyo doorasho waa mawduuc xasaasi oo ka fiican kan ma laga soo laaban karo marka waxaan isleeyahay dhowrka su-aal oo aada weydiisay zakariye iyo baafan waxaan rabay xildhibaan zakariye inaan ku daro horta xisbiyada siyaasadda iyo wax walba oo bani aadamku uu qabto waa tajribo la sameeyo dhalata korta hormarta waxaan aada ula yaabanahay in xisbiyadii hadda kumeelgaarka ah weli jooga horta inaan dhaliilno maba la gaarin waqtigii la dhaliili lahaa waxaa la rabaa in xisbiyada la sameeyo karateriadii la sameeyey waxaa u sameeyey sharciga axsaabta siyaasadda guddiga doorashooyinka qaranka waa inuu soo saaro soo liisti gareeyo xafiisyadooda la tijaabiyo doorasho ay galaan mid labaad ay galaan mid saddexaad ay galaan andan meeshaasaa waxaa ka muuqan karta in axsaab siyaasadeed oo fiican ay yihiin iyo inaysan ahayn laakiin dee axsaabteenna siyaasadeed ee hadda shahaadada kumeelgaarka ah ku jooga dadaal sida uu sheegay ustaad baafo dadaal shaksiya iyo mid kooxeed iyo mid saaxiibo ku taagan waxaa ka warhaysaa haddii aad rabto qofka soomaaliga inta badan waxaan lagu arkaa haddii aad rabto waxa adduunka ka jira hadda inuu xisbiga akbarti iyo xisbiga republicanka iyo midka ingiriiska ka jira iyo aan one night ku noqono waa ka gar daran tahay axsaabta siyaasadda axsaabta siyaasadda fursaddaas ma helin adduunka axsaabta siyaasadda budgetka dowladday wax ku leeyihiin budget miyaa waxna laga siiyaa ustaad laakiin waxaa xaq loogu leeyahay inay u ekaadaan u diyaarsan inay noqdaan sidaas waa soo wadaa si fursaddaas loo helo waxaa u baahanahay in guddiga doorashada qaranka ruuxiisu uu soo qiimeeyo weli qiimeyntaas lama samaynin waxaa loo baahan yahay soomaaliya waxaa kaloo hal qodobo muhim oo hadda meeshaana looga dhawaajiyaa jirta soomaaliya arrinta qabiilka ilaa aan iska xalinayno oo weliba aniga aan aaminsanahay in kirmaadda inta laga deeyay aqbalaad in loo bedelo ilaan mar walboon hadda meeshaan soo istaagna aniga iyo zakariye iyo baafo waana fiirinaysiin odowaa waa nin saasa zakariyana waa nin saasa baafona waa nin saasa saddexda xisbina saasay kala yihiin aa ku xigta haddiiba marka qabiilku uu sidaas muhim u yahay maxaa diidaya qabiilka iyo axsaabta sidii la isku waafaji lahaa in laga shaqeeyo xildhibaan 30 sano oo distraction soo nuguma filla inaan ka gudbo Soomaaliya waa mahadsan tahay 30 sano internet baa jira Facebook baa jira adduunka dhan hadda in la isku daydo oo wax fiican lagu daydana waa sax
qur-aankii albaqra xildhibaan zakariya adoo mahadsan saddexda daqiiqo odawaa iskale asigaan u daynaynaa waa mahadsan yahay xildhibaan zakariya aad u mahadsan yahay laakiin waxaan aaminsanahay realitiga soomaalida ma cabirayo waxaan loo cabiraynin haddiiba asaga iyo anigu aan nahay hadda labadeena reer a kala garanayso labada xisbi oo ku jirtana dadka jidka jooga ay iska barandhigaraynayaan 1960 ilaa 69kii Soomaaliya axzaaba ka soo jirtay dad badan oo kamid ah taariikhda akhrisaan 22 sano waxaa lagu barandhigaray 69kii ilaa 60kii inay ahayd fadradii corruptionka hebelowkanka fatrada in la barandhigaray waxaa ka muhiimsaneed 9kaas sano waxaa soo sameysmay axzaab siyaasadeed horumarinta axzaabta siyaasadeed waxaan aaminsanahay haddii sidaas ay ku socdaan 1990kii ayagoo soo gaari lahaa maanta meel aad iyo aad uga fog meeshan joognaan joogi lahayd aniga conceptiga aan qabo waa maasan yahay xildhibaanka saaxiibka waan ixtiraamayaa laakiin waxay ila tahay realitiga qabiilka inta aan inkirayo oo aan rabo inaan aniga ku tuso portrayationka aan soo bixiyo inaan ahay qaanuunka axzaabta waxaa ku qoran inuu isku dhafnaado laga rabaa isku dhafkaas ruuxiis wuxuu u baahan yahay waqti uu ku yimaado hadda inaad ka warhaysaan in kale ma ogi labadan beri guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee Puntland waxaa laga sameeyay Puntland xisbiyo siyaasadeed sida fiican oo runtii ah oo ay ku sameysmi karaan xisbiyada siyaasadeed nationalka waxay yihiin in Puntland laga sameeyo galmudug laga sameeyo koonfur galbeed laga sameeyo ayagu ay israadsadaan aniga la igu qasbo la yiraahdo haddii aadan cod ka helin Puntland haddii aadan taageero ka helin koonfur galbeed haddii aadan taageero ka helin Jubbaland ma helaysid codkii loo baahnaa ee aad baarlamaanka ku waxaas marka waa technicals laakiin hal arrin oo muhiim ah jirta mar walba abtirsigaygu wuxuu ahaan doonaa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Carrool marka maadaama uu kaas ahaan doono kan iyo kaas sidii la isku waafajin lahaa waxay naga rabtaa adoo aad u mahadsan su-aashaan ahayd oo aan ku weydiiyey cidda xaqa u leh in ay extensionkaas go'aamintiisa qayb ka noqoto oo ay gaarto yaa waayo والله ده extension كي حق اللي ليه ما بقى بنسني بتاعز ما بجرت بقى extension وبعدين كان أفرت سنة مركي لجاروه إنه دورشة كان على واحد ديدا إنه دورشة على أو إيش يكتو تراني ودورشة دي إن مدحوينه الربع إنه extension سما استهدي لقى صوتك أسباب كله أو وبعدين كان كتاعن أو دورشة كل وإذا ما جرته وحد دورشة لقبتي وتكور هيسان لبكون لبيه طبعا كي مدحوين الشيخ شريف مركو جوجي حرونت إسكولة جلوسي هرتي ده لبقى فاضي إسكو قرحسي ayadoo ergadi iyo dadkii doorashada gali lahay ay gudaha ku jiraan waqtigaas doorasho la qabtay marka maanta hadda doorasho lama qaban karo qof hadda sheegi karta ma jirto marka cid xuquuq u leh inay extension samaysaa ma jirto taas ma aaminsan aad u mahadsantahay isla su-aashaan aan rabaa inaan Salmaan weydiiyo hadda su'aalihii xiisaha lahaa waa ay hormarisay extensionka ugu leexisay xildhibaanima iyo xildhibaanada ku fiicnaa arrimahaas inay ay xoog saaraan laakiin labadaba waxbaan ka dhahayaa su'aalihii ugu horreeyay madaxda weydiinaysay sida xisbiyada loo tayeyn karo ama xisbigu awood u yeelan karo su'aashan dambe hadda ay weydiinaysay haddaan ugu hormaro sida tayada xisbiyada horta waa nasiib darro sida xildhibaan Cabdiraxmaan waa uu sheegay in waqtigan maanta la taagan yahay in xisbiyada hawshooda laga doodo oo dood la geliyo xisbiyadani waxaa ku jira xisbiyo 4 sano jiray waxaa ku jira xisbiyo 3 sano jiray waxaa jira xisbiyo ka badan jiray oo doorashooyinka hore isbeddelay jiray baarlamaanka horreeyay baarlamaanka sagaalaad ayaa sharciga xisbiyada ansixiyay in xisbi si kumeel gaar ah loo diiwaan gelin karo sharcigaasna annagana lagu diiwaan geliyay dal xisbiyanahay shuruudihii markaa sharcigaas baarlamaanka sagaalaad ansixiyay uu tilmaamay wuxuu ahaa in xisbiyadu ay 9 gobol xafiisyo ka furtaan 10,000 oo qof diiwaan gashtaan maxay ahayd ay hawshaas oo dhan qabtaan hawlina loo sameeyay inta markaan qabanay dhibaatadu waxay ka timid waxa waaye caqabada ugu badan xisbiyada hadda soo wajahay ma aha xisbiyada waa madaxda siyaasadda ma taqaana hogaaminaysa sida dowlad goboleed iyo dowladda federaalka xisbigu wuxuu tartan ku galaa madaxda kuraasta fadhidaan uu tartan u galaya ninka tartanka la galaysay laba awoodood buu haystaa kow wuxuu awoodda koowaad haysta waxa waaye mas'uuliyaddii dalka isagay saaran tahay waxa waddanka ka soconayaan waa inay isaga ka go'da rabitaankiisa haddii isagu uusan rabin in xisbi dalka doorasho lagu galo uusan diyaar u ahayn الحزب وحر ربا أمني وربا وحر ربا ديجانا دو حفيسة كفر الله موكا أباب الكسمة الله إن دولة أمني كذا كشقيسو بلشدي إمام كي دقمين كي جارسيسو دولة
waa shaqadii dowladda laga rabay waa laakiin haddii dowladdii aysan xisbi rabin ama aysan u soo jeedin waa adag tahay xisbigaas inuu meeshaas awood ku yeesho midda xigtay dowladdu awoodeeda waxaa waaye labaad nidaamka sharciyada wasaaradda arrimaha gudaha sharciga xisbiyada hadda sharcigan doorashooyinka waagii wata dowladda baarlamaanku ansixinayay madaxweynuhu saxeexay wasaaradda arrimaha gudaha soo diyaarisay sharci hore waxaa jiray BR close list la dhihi jiray baydhabo ay dowladda federaalka kusoo heshiiyeen sharcigaas markii baydhabo lagu soo heshiiyey wasaaradda arrimaha gudaha xisbiyada iyo la tashi la samaysay oo isbuuc u fadhinay la tashigii golaha wasiiradu waa qaadeen waxbay ka bedbedeleen way ansixiyeen sharcigi baarlamaanka loo geeyay sharci haddana waxbaa laga sii bedelay laakiin dowladda xukuumaddii markaa jirtay sanad iyo 3 bilood mise sanad iyo 4 bilood waxay haysatay sharcigii haysatay markii anaga lala tashanayaan sanad iyo intaana xukuumadda haysatay macnaha waxay ku tusaysaa xukuumaddii markaa jirtay ama nidaamka markaa jiraay inuusan diyaarba u ahayn in dalku nidaam xisbi la galo marka xisbiyadu waxaa la ogaan karaa tayadooda waxaa la ogaan karaa inay xisbiyo awood la yihiin waxaa la ogaan karaa dacaayado waxaa iska jira raqiis oo la yiraahdo xisbiyada shakhsi kaliya wata xisbiga waxaa wata group gaara wata kuwaas waa sharfayiin in bilad la siiyay ku sharfayiin maxaa yeelay dowlad budget lama siiso dhaqaalena lama siiyo hay'adaha dhaqaale lama siiyaan contribution alleen aan karooyinka ku bixinaa bil walba anaga da xisbiga shacabka Soomaaliya gudoomiyaha ka 9 gobol baan xafiisyada furayeen naga furayeen dhaqaalaha xafiisyada ku baxaya contribution baan ku bixinaa bil walba laga rabaa marka waxa taasi ku cadeynaysaa inaan diyaar u nahay inaan ka qayb galno tartanka mataqaana siyaasadda marka waxa la rabaa waxa waaye xildhibaanaduna wayna la fadhiyaan iyaga laftigooda aad baan ugu dhaliilaya xildhibaanada ugu canaanay maxaa la yeelay xildhibaanadu iyaga la rabaa in dowladda la xisaabtamaan maxaa yeelay xukuumadda iyaga xasixiyay madaxweynaha iyaga doortay marka iyaga la rabaa in xisaabta dhaba inay sameeyaan marka haddii taas ay lagu heshiyo hadda shir baa soo marrab ka dhacay waxay isugu yimid madaxweynayaashii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka shirka marka la isu yimi aragtiyo fikir gaar ah la iska raali gelinaya laga hadlimayo masiir guud laga hadlimayo haddii dan guud laga hadlayo ama doorasho guud laga hadlayo oo la isu yimaado doodaas waxay imaan doontaa waxa waaye war sidee xisbi doorasho aan ku galnaa ma imaanaysa marka waxay imaanaysa in la yiraahdo madaxweynaha Puntland fikirka ka tanaasul koonfur galbeed madaxweynaha fikirkiisa ka tanaasul galmudug sidoo kale Hirshabelle iyo Jubbaland sidoo kale xisbiyada ha loo tanaasulo dalkan xisbiyada doorashada galaya marka taa waxaan uga baxayaa oo aan uga gudbayaa horta waa in nidaamka xukunka hayaay amniga ama dowladnimada ay mataqaan hogaaminaya horta waa inay rabitaankooda cadeeyaan dowladuna ilaa hadda xisbi ma samaysan maanuuba TV-gan taagana waxa leenahay dowladdu xisbi ha samaysato marka taas waxaan uga gudbayaa haddii dowladdu xisbi samaysato dowlad goboleedu xisbi samaystaan hawlahan anaga laftigeena awoodeena iyo tayadeena markaas imaado guddiga doorashooyinkuna shuruudahan xisbiyada lagu kala reebay marka la yiraahdo tusaale company baa dhul dhisaya company markuu dhulka dhisayo dhowr company baa codsiga gudbista tartana la geliya company baa markaas soo baxa xisbiyaduna waxay baahan sidaas si leeg in tartan loo geliyo shuruudaha hadda sharciga xisbiyada la ansixiyay tartan lagu geliyo xisbigii ama xisbigii soo baxa la ansixiyay adigoo aad u mahadsan si kooban waqtigan waa ka dhamaaday si kooban arrinta ku saabsan yaa leh xaqa in waqtiga lagu darsado yaa leh oo baarlamaanku ay ku darsadaan ama madaxweynaha loogu daro waa su'aal fiican waaye horta hadday noqoto in muddo ku darshasho ay meesha timaado dad badan oo siyaasiyiin madaxa waxaan ka maqlay siyaasaddu waa qori isku dhiib madaxweynahaas uu ku soo wareejiyay madaxweynaha ku soo wareejiyay madaxweynaha shikoorri haddii garan waayeen doorasho qof iyo dalka wad gaarsiin kartaa oo madaxweynaha hadda jooga uu gartay in doorasho qof iyo dalka uu gaarsiin karo walow isan aragtidiisa fikirka siyaasiga ilaa hadda ay saacadayn xisbiyada lagu xanta dowladda inay u dhow yihiin aanu ka mid nahay waxaan aaminsanahay waaba sharfo yahay madaxweynuhu inuu yiraahdo doorasho qof fiican dalka gaarsiin laakiin arrin baa jirta laakiin caqabad kale marka haddii muddo kordhin imaan karto ama muddo kordhin laga hadlayo waxay ku timaadaa waxa waaye in intii la isu yimaado la wada hadlo wax badan la isla cid xaqaas leh oo isu imaanaysa yaa waay wallahi xaqa waxa iska lahaan kara waa hadalkan ku wadee haddii dadka xisbiyada iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo baarlamaanku isu yimaadaan labada aqal oo la yiraahdo war dalkan doorasho qof fiican inaan gaarsiinaa naga wada go'an oo hadda taa lagu baraarugo meeshaas wada tashiga ka yimaada ama go'aanka ka yimaada ayaa la oran karaa wariya xaq u leh muddo kordhin waa la samayn karaa laakiin waxaan hadda u jeedo aan ku dhamayo hadda waxaan dhigto harkan xildhibaano badan oo kutubiyo ku dhaw shir intay qabteen dalka waa badbaadinaynaa marka anagu waa qeylinayna dhibaatooyin dalka badbaado ma baahnayn miya hadda dalku badbaado u baahan yahay extension waxaan aaminsanahay waxa samayn kara ama mataqaana ku darsasho keeni kara waxa waaye dadka markaa siyaasadda hogaaminaya iyo dadka markaas mucaaradka ah intay isu yimaadaan inay wada tashtaan wada tashiga wixii ka yimaada inay muddo kordhin ku imaan karto laakiin madaxweyne aan ku dhameeyo madaxweyne adeeg raaliya madaxweyne xaq uma laha baarlamaanna xaq uma laha extension
ummadda maxaa yeelay dastuurkaba maba ku qornaba waxaa ku qoran keliya in dalkeena 40 sano oo doorasho la geliyo aad oo maasan Zakariya 3 daqiiqo isla su'aashaas adduunkana kuma jirto baakum in siyaasaddu ay gasho ummaddan mustaqbalkeed in mugda ay gasho waxa weeye fowda ay imanaysa fowdadaasna waa ognahay oo aad bay u nugusho u sahlan tahay sida Cabdiraxmaan u sheegayay odawaa u sheegayay haddee qabiilku waa tayeysan yahay waana kobocsan yahay marka hadduu kobco oo hadda xisbiyadii la yiraahdo xataa Puntland haddaadan ka soo bixin dee waxba xaq ma lihid muwaadin Soomaaliyeed ma hayda Puntland kaliya muwaadin ka tahay waa dhibaato weyn weeye qabiilka la tayeynayo waxaynu u sii soconaa mar walba qabiilka inaynu xoojino taas weeye midda ina ka indha tirtay inaynu qaran noqono dhageysta dalkani transformation buu baahan yahay bini aadanku laba siyood buu isu bedelaa evolution ama revolution evolution 30 sanaan ku jiray waana socon weyday evolution qabiil baa noqotay waxaan u xubsiibanay qabiilka inuu calamo yeesho madaxweyneyaal yeesho xuduud yeesho ciidamo yeesho siyaasad yeesho shantii waxyaalood dawladda rasmiga dawladda dhexe laga rabay shantaba inuu yeesho waxa la isu afgareyn laayay oo dawladda dhexe moogta runta aan isu sheegno dawladda dhexe iyo dawladaha goboladu waxay isu afgaran yihiin literally waxa weeye waa beelaysan yihiin waxa weeye qabka qabiilka markaynu qaadano halka istaajino wax ka qab weyn ma jiro dawladnimada xataa waa ka qab weyn halkaasaynu ku soconaa waana ku dhamaanaynaa haddaan la helin transformation waxaana transformation keena kara leadership there is a difference between a politician and leader annaga waxa u socdaa ay waqtiga annaga 30 sano politician oo baynu arkaynay politicianku waa qofka dadka polarize gareeya wuxuu isagu rabo kaliya ku buuxa bal ayaga dawladda adduunka ugu xoog badnayd ninka la yiraahdo Trump sidoo dadku u polarize gareeyo leaderku waxba ma polarize gareeyo picture ka weyn buu arkaa dadku way isugu mid qabiil iyo meel yar iyo gobol yar iyo shaqo kuma u lahaa annagu waxaan u baahanahay leader transformation sameeyo waa dhimanayna jidkaynu ku soconaa dhimasho weeye waa inaynu garanaa dadka Soomaaliyeed maxaa ku dhacay waxa weeye dawlado badan baa qabiil ahaayoo barbaray Tutsi iyo waxa islaayay Hutu boqolku waxay iska dilaan 1 milyan oo qof bay iska dileen maantana waa dawladda Afrika ugu horeysa Sierra Leone ciidamadeedana waa deeya 2008 iyo 8 bay civil war ka dhacay Burundi ciidankeedana waa deeya haddeer 2016 dagaal baa ka socday anoo maxay nahay masab human baan dadkan ka hooseynaa waxa weeye su'aashan markaan sooskaaga ay jawaabo ilaa barlamaan la helo asaaska dawladdu waa barlamaan barlamaanka hadda jira waxa shaqadiisu tahay inuu ka shaqeeyo sidii u gaarsiin lahaa talada ugu dhiibi lahaa barlamaan hore meeshu madaxweyne iyo waaba laga sokeeyaa waxa ka sokeeya dadka yaa wakiilka dadka cidda wakiilka ka ah baa laga rabaa inay keenaan barlamaan maalintaas aan anu ka tagaynaa xilka maya goorma ka tagayo kuma dhihin laakiin inaad waqtigaas ka tagaysid iyo inaad ka tagaynin xaqaas yaale barlamaankaas kale oo hadda jira baafan siinay sidii lagu heshiiyey waxay ahayd 4 sano markay dhamaato in doorasho la qabto ay doorashadaasina qabaqaabadeeda mas'uuliyadda koobaad waxa iska leh xukuumadda markaas jirta iska leh in haddeertaan waqtigii la gaaray ama hoosta nooga soo jiro oo shaki la geliyana mas'uuliyaddeeda waxaa qaadanaya dawladda qaadanaysa sida ugu fiicanna waxay tahay si loo ilaaliyo nidaamka isbeddelka xasiloon siyaasadeed in waqtigaa marka la gaaro la qabto haddii marka hadda ay timaado dood timaado wadamada tan colaadda ay aada ugu raagay waxyaabaha la fiiriyo sharcigana waa la fiiriyaa laakiin waxaa ka weyn is-afgaradka ayaa ka weyn maaragtay is-afgaradkaasuu ahaa kii labadii xukuumadood oo labadii isbedeloo hadda ugu dambeeyey ay xoogaa ka durkeen waqtigii la qaban lahaa waqti kaleetay u galeen kan marka yani hal mid baa jirta waxaa dooda hadda socota waqtiga la qabanaya kusoo kordhay oon awal hore u jiri jirin waxay ahayd waxay ahayd ay ilaa hadda intaan soo soconnay mar kasta markii doorashada loo soo dhawaado hay-adda ugu muhiimsanayd oo siyaasadda gacanta ku haysay oo ah baarlamaanka ah ayaa meesha ka bixi jirtay maaragtay waxay talada ku wareegi jirtay meel ka baxsan oo aan dadkii lasoo magacaabay oo aan ahayn markan waxaa soo kordhay marka xukuumaddii in ay ogolaatay in baarlamaanku uu cod ku yeesho maaragtay meeshaasna waa meesha farqiga uu ka yimid
isbahaysiga xukuumadda iyo baarlamaanka markaa waa in laga ilaaliyaa inaanay u adeegin dano gaar ahaan ayaga si gaar ah ay uga faa'iidaysanayaan waa inay ku timaadaa wax alla wixii isbeddeloo ku dhaca wax loo danaynayo dadweynaha guud ahaan loo danaynayo inay halkaas ka timaado maarta is-afgaradkaa siyaasadeed yaa ka qaybgalaya yaan ka qaybgalaynin waa waxaa deertaan taagan laakiin waxaa kulli laisku wada raacsan yahay xitaa haddii la durkinaayo inaanay noqonin baarlamaan keligii wax ku darsada inuusan noqonin xukuumad keligeed sheegta inay wax ku darsanaysa inayna noqonin xasiloonida ilaalinteeda iyo waxa aan rabno lasoo dhoodhoobay ilaalintooda waxay u baahan tahay is-afgarad guud inuu jiro oo marka kan xitaa loo baahan yahay bulshada rayidka inay qayb ka ahaato axsaabta inay qayb ka ahaadaan annaga maalin dhaweyto bulshada rayidka waa las abaabulay shirkii dhuusamareeb baan tagnay waxaan la kulannay mid ula kulannay madaxdii meesha joogtay halkan intaan joognayna madaxdii jubbaland ayaan la kulannay markaan meesha aadaynay cidna dirtay lama arko annagaa is dirna qof kasta oo xubin ka ahaa guddigii halkan ka baxay isagaa diyaaradda iska bixiye isagaa raashinkiisa meesha iska bixinaya qof kaloo ka bixiye ma lahayn يعني waxay ahayd isxilqaan bay ahayd shaqo fiican waxaan rajeynayay xisbiyadan inay saasoo kale yeelayaan oo ay meesha imaanayaan oo ay dhacsanayaan qaybtooda iyo codkoodan meeshay ka badan ka maqnaashaha meeshay ka maqan yihiin waxay muujinaysaa heerka tatawur iyo horumar ay axsaabta gaarsiisan yihiin laftirkooda maaragtay waxaa aan isleeyahay iyagana meesha dooda waa ka maqan yihiin dooda ha kusoo biiraano wax badan oo siyaasadeed oo bulshada rayidka ay qaban jirtay waxaa hadda ay qaban jirtay waxaa la wareegay axsaabta la wareegay iyagana inay yimaadaan masraxa inay yimaadaan ay kusoo biiraan marka aniga waxaan isleeyahay meesha halkan laga aadayo sida kulligeen ama inta badan dadku ay wada aaminsan yihiin waxay tahay ha noqoto mid la isku wada raacsan yahay wixii aan la isku wada raacsanayn balaayaa ka soo bixi karta oo annaga dhib noo geysan karta maarta waay marka hadday timaado baahi ah in waktiga lagu daro yay tahay xaqaas inay go'aamiso yaa xaq u leh oo adiga aad aaminsan tahay aniga ma qabo in baarlamaanka keliya lagu koobo baarlamaankii dowladda keliya in lagu koobo waxaan qabaa inta danaynaysa siyaasadda danaynaysa oo saameynna ku lahaanaysa xasiloonida iyo dowladnimada ku lahaanaysa oo ay ka mid yihiin waxaan qabaa dowlad goboleedyada laftirkooda in lagu soo daro waxaan qabaa in xisbiyada lagu soo daro bulshada reedka lagu soo daro tashiga iyo ka wada hadalka in la ballaariyo aan lagu soo koobin in yar aan lagu soo koobin maxaa jira inta yar waxaa laga yaabaa danahooda gaarka kaliya inay ka fakeraan baarlamaankeena waxaan ku xamanaynaa inay rabaan inay sii joogaan oo sii cimri dheeraystaan dowladda waxaan ku xamanaynaa inay rabto inay sii joogto mataqaan sii dheeraysto marka inaan danahaas iyaga u gaarka ah dadkii talada inta gacanta loo geliya haddana ay danahooda ka shaqaystaan waxay lid ku tahay maxaan ku dhahdaa dowladnimadeena lid ku tahay haddaan gadaal u noqdana in muddo la ilaaliyo wax lagu daro waxaa ka weyn waxa aan raadinayna maarta yacni aniga waxaan xusuustaa waxaan ku jira dadkii dalka joogay sagaashameeyadii dalka joogay oo aan ka bixin aan ahaa waxaan gadaal u xasuusanayaa labadii sano ee cali mahdi la siiyey oo malaha maanta haddii labadaas sano cillad kasta ay leedahayba si uun looga heshiin lahaa laga yaaba 30 sano kadib maanta meeshaan taagana inaan taagnaanin maarta aad u maasan tahay hal kelimado saxitaan ay siinaysaa waxa weeye annagu institutioniskeena horta ma ictiraafsannahay in dowladi jirto oo barlamaan jiro oo barlamaankaas soomaaliya oo dhan ka kooban yahay in dastuur inoo qoran yahay kumeel gaar baa ahaadee ma jirtaa road mapka isagaa sheegaya waxa weeye ku darsigu wuxuu horta iman karaa oo keliya duruuf markay timaado haddaan duruufi jirinin laguma dari karo waxba waa in la raaca dastuurka siduu yahay duruuftaasi markay timaado haddii la yidhaha bandora box oo consensus la dowlad consensus laguma maamulo adduunka dhan waa la yaqaanaa dowladda inta la doortay baa loo daayaa inay shaqadii qabataan within the framework of the constitution iyagoo sharciga raacaya laakiin haddii la yidhaahdo qof kastuu tala ka bixi waxa weeye la heshiin maayo aanuna beelaysannahay way aad u maasan tihiin waxaan rabaa 10 daqiiqo inaan siiyo ka qaybgalayaasha kale haddii su'aal ama aragti ay tahay 10kaas daqiiqo 3 qofood aan siinaynaa 3 qofood kadib panelkan kusoo celinayna haddii aan leedahay marka waqtigana aan ixtiraamno qolada farsamada magaceedu Cabdi Qadiir Asmaan kamid ahay dhalinyarada soo gabagabaysay mudada jaamacadda Jaamacadda Soomaaliya ka socda
su-aasheedii waxay toos ugu socotaa labada xubin ee naga joogta aqalka hoose baarlamaanka ustaad cabdiraxmaan odwaa iyo ustaad sakriye su-aasheeda ay tahay aan isla ognahay haddii doorashada inay waktigeeda ku dhacdo caqabada keliya ee hortaagan ay tahay madaxweynaha adinkuna aad rideen wasaarihii doonayay inay xilligeeda ku dhacdo ma anagaa waalan mise cadan baa laga heesayaa maxaad u ridi waysay madaxweynaha si arrinkan buuqiis loo soo gabagabeeyo waxaan rabaa inaan anigu caddeeyo dadkii aan xaman lahayn ama aan wax ka sheegi lahayn haddii meesha lagu casumo oo ay isdifaacaan oo dantooda ay mar kasta yani iyo goob kasta u tagaan lagama gudbaayo wax ka hadlayo marka cidda rabta inay wax yani maaragtay sharci darraa kororsato oo wakti aan dastuuri ahayn yani maaragtay ku dabaqdoo tiraahdo ilaa ilmo kale ay dhashaan anaa hownaaska hooyaday nuugaan horta sax ma waxaan rabaa xildhibaanadu inay ogaadaan baarlamaanka ku jira markii la dooranayey ama la dhaarinayey lama dhihin idinka meesha joogaysin ilaa baarlamaan kale idin bedelo duruufta uu hadda sakriye sheegayo oo ah haddii ay marxalada timaado waxaana haystaba ayagaa abuuray si ay usii joogaan marka waxaan rabaa in la aamino waxa dadku ay ku heshiiyeen in qofka xildhibaanka ah uusan ku fekerin siduu kusoo laaban lahaa in qofka wasiirka ahi uusan ku fekerin siduu madaxweyne ku noqon lahaa in madaxweynuhu uusan ku fekerin inuu dib u soo laabto anigu waxaan qabaa reformka lagu samaynayo constitution in lagu daro waktiyeyn ama xilli la siinaayo xildhibaanka inuu 2 goor soo laaban karo waxaa jira dad hadda 20 iyo dhowr sano baarlamaanka fadhiyey oo ku ciroobay oo ilaa hadda taagan waa sii joogeen waxaan rabaa inaan su-aashaadi u laabto ahayd yaa xaq u leh kororsi iyo in wakti lagu daro madaxileed anigu waxaan isleeyahay cid xaq u leh haddaan wada tashi guud imaanin ma jirto baarlamaanka hadda ku riyoonayo sheekooyinkaas fowday abuuraya waa maad aada u mahadsantahay dastuurka waxa ku qoran baarlamaanka waxa bedeli kara baarlamaan qofkii cod ugu soo doortay baarlamaankii 9aad qodobkaas aanu damacnay inaan isticmaalno oo aanu ka dhigano sabab aanu ku sii joogno maadaama aan waddanku doorasho iyo maxaan ahay qofkii doorasho diyaar u ahayn annaga rabitaankayga ka mid ah laakiin waxoogaa qayr mas-uulnima ka muuqatay madaxweynihii waktigaa jiray xasan sheekh maxamuud nagula dagaalamay arrintaas ma ogolayn baarlamaanku naga xidhexda inaan maalintan doodaa qaadi lahayn marka mas-uuliyiinta dalka haysta madaxweyne farmaajo waxaa laga rabaa inay isagaa oday waddanka ka ah mas-uuliyaddiisii baa laga rabaa inuu guto oo ah yacnihii dalkan in loo diyaariyo qaab mandate-ka baarlamaanka waktiga jiraayay ay u dhammaan karto oo mandate-ka cusub ee baarlamaanka uu imaan karo isaga laftirkiisa uu mandate-kiisa uu ku dhammaysan karo laakiin aan loo maxaanaye loo gogol xaadhin extension iyo waxayna ummaddu kusoo heshay adigu ilaa dowladda cartaa joogta su-aalaha lagu weydiina waxay haayeen inaad doorasho ay dhacayso iyo in kale siyaasadda in badan baad kusoo jirtay maxaad adigu aada faallo nooga bixinaysaayo oo gaar ood nasaaraysa because ilaa waxaad la gorofaynaysaa un asxaabta ku agtaaga adiga gaar ahaan shaksiyadaada ahaan eed ku doodayso inaad waqti badan aad soo joogtay maxaa aad siyaasadda kaga qayb qaadanaysaa in doorasho dhacayso cod iyo qofka guddi doorashaa dhisan oo technical oo lacag lagu bixiyo oo la aaminsan yahay oo dastuuri ah taladuu keenay waad ogtihiin waa in taladuu keenay la qaataa sababto waxa weeye daraasad buu ku sameeyey waxaa dhisan barlamaan waxaa dhisan madaxweyne waxaa dhisan xukuumad baa dhisan intaas haddaynaan aaminsanayn oo aynu rabno beelihii inaan ku noqonno bal horta marka ugu horreysa intiina halkaan fadhida iyo inta soomaali oo maqan beel walba qof baa barlamaanka kaga jira ama 2 qof ama 3 qof ama 5 qof ama 10 qof ama 20 qof maxaad u soo dooranaysaan haddaynaan aaminayn war bahashu maaha aan sii jooga maaha aan sii jooga macno male qaran baynu ka hadlaynaa
ma adduunka miyaad aragteen dowlad dadkii xukumayay markii muddadii la gaaray iyadoo aysan dhammaystirayn howlihii doorashadu iska tagoo yidhaahda waa ka baxnay xafiisyadii maxaa dhacaya markaas dagaal baa dhacaya soo maaha waa fawdo soo maaha ma fawdaynu weligan ku jiraynaa 30 sanaan ku jirree aan caqlisanno jacaylka qabiilku oo hadba heer ah oo markuu gobol joogana heer ah oo markuu qaran joogana heer ah oo markuu jifo joogana heer ah war inta iska dayno aynu horta dowladnimada aaminno dowladdan tabarta yar waxay u tabar yaraatay wallaahi inaysan wax kale ahayn carta 20 sana laga joogaa 20kaas sano qaabbeeleedkaas wax lagu soo doorto baa dowladdii Soomaaliya billa Soomaaliya u dhaafilada ogaada maalinta doorasho la galo oo qof iyo cod la aado dowlad Soomaaliyeed oo rasmi ah imanaysa yay kaamil ahaan haday rabto corruption-na dhacaan haday rabto laakiin waxay dhaantaa anigu reer hebel baan matalahayaa xildhibaan ah anigu wasiir baan reer hebel ah waagaan wasiirka ahaa dowladda carta yaa waxaan ka hadlay xabasho qabsatay Baydhabo wasiiradii igula jiray oo halkaa ka soo jeeday baa maxaa kugu jira adiga Baydhabo burca wax ka dhacaan waa ka hadlay wasiiradii burca ka soo jeedaa yiri adeer maxaa kugu jira burco wardaanu wasiir Soomaaliyeed baan war mushkiladan aynu kala saarnaa anahay dowladnimadii iyo qabiilka hal laga baxo waa qodob marka ama dowladda qaanuun baan aadayna ama dowladda qabiiliya sidaan hadda nahay walaashay anigu carta asaasiyaashoodii baan ahaa fikirkan Ismaaciil Cumar Geelle anaa ku dhalay inuu noo qabto shir wax badan baan isbedelay waaga lama wada hadli jirin qabaa'il baa diriri jiray laakiin 20kii sano anigu ma ahayn dowladdu kuma aanan jirin for your information dowladdii Baydhabo joogtay markii ay keentay Ethiopia anigu waa ka tagay shaqadii shaqa jacayl uma jirinin markhaati baa la iga yahay dadka halkan fadhiya waxaan tagay Asmara dagaalkii lagaga xoreynayay magaalada Muqdisho ciidamada Ethiopia ka qayb galay 10 sano aan ku maqnaa hadda ay ugu horeysa aniga aan ku soo galay baarlamaanka haddana waxaan rajaynayaa inaan wax badan ku soo kordhiyay muxuu ahaay siyaasadda Soomaaliyeed kullay in la sheego ma fiicno Soomaalidu waa ku yiraahdaa nin isfaansho wari gees jaban laakiin wararkaygu banaanku yaala waad og tahay muxuu ahaa marka waanan dadaalayaa inta ku jiro anuguna haddii waxaan kuu sheegayaa waxaan ugu jiraa siyaasadda Soomaaliya inaan wax ka soxo 10 shahaadaan haystaa beeraley baan ahay aqoonyahan baan ahay meesha raba ka shaqaysan karaa shirkad baan leeyahay baan siyaasadda Soomaaliya laakiin dowladda Soomaaliyeed baan rabaa aad oo ma santahay jabaan Zakariya markii in adeerkiis joogana hal la joogo yaallaysa bla gaadhay hal kala helo adeerkay ma aframa dabaadan baan isugu tagnaa waxaan rajaynayaa hadalka inaad kala heshaan qof mar qaato hadalka xildhibaan Zakariya xukuumaddii aan aniga ka tirsanahay madaxweyne xasan sheekh waxa aad ka tiri qof walba waa ogyahay intaan marqaatiga ka tahay marka de documentu asaa is sheega waxa la rabaa markii adiga ay ku miisan taana extension hal la sameeyo markaan dhamaysto warkaaga waa tiri inaan war u adkaysan waran u adkaystaa la yiri waxa la rabaa markii ay adiga ku miisan taana qabiilka meesha ma hada qabiilkii fiiri qabiilku waa naga wacdinaysaa jeebkoona kaaga buuxa marka waxa la rabaa adinkoo mahadsan ma hada dil ii jawaab waa jawaabi adinkoo mahadsan doodan waxa waaye political debate ma aha academic debate waaye ya adinkoo aad u mahadsan academic debate waaye political debate ma aha marka waxaan rabnaa academic debate waxaan rabaa fiiri qabiilka Soomaalida sida xildhibaanka saaxiibkeeya uu wajigana uga tiranaya caloosha ugu buuxeen ugu wada buuxaan marka caloosheedu ka warqabaa ma adkaysan karo odagu iska daaya xildhibaan Zakariya adigoo mahadsan waqti aan siino odawaa waqti aan siino barnaamijka iska daayaan anigu kuma soo qaaday intaan hadlaayay maxaa iga rabtaa aniga waxaan sheegayaa wacdiga aan runtaa inaan diidanahay wax yar waxaan codsanaynaa qofka 3 daqiiqo in loo daayo oo uu dhamaysto sidaasaan codsanaynaa xildhibaanka waa ka leexanaya waa koraan u qaadaya dood wax yar waa xalinaynaa wax yar waxbaan qurxinaynaa waa mahadsantihiin waa joojiyaa ninka magacayga sheegay miyaan ka aamusaa maxaa ku hadlaysaa xitaa cadaalad daradaas war anigu hal mar ma sheegin odowaa wata halisdiis أنا أعرف هدي بوينتس discussion أو دستورية لقى هلا أنا وكالله هدي وعدي لقى هلا أنا وكالله لا بس ورك سياسة لو كلا قاعدة الربع هدي لا يرى مرك وحربا ما يوارد ما يسنى وحربا كراسة برلمانك أنا عن كفدي هرت أفر سنة على يصدرت إلى هذا ده بحفلة أوديك تي كرسي أنا كفدي ده حفلة أوديك متك مدحوين برماجو كفدي أنا ده حفلة أوديك أفر سنة هدي أي نافتو
dastuurka 4 sano noogu qoran sida la sheegay waxaa la iska rabay doorasho qof iyo cod ah doorashadii qofka iyo codka ah shaqo lagama qaban maalin guddiga doorashooyinka qaranka baarlamaanka u yimid sanad iyo 9 bilood aan u baahannahay si aan doorasho qof iyo cod u qabanno way in reality haddii sanad iyo 9 la bixiyana iyo 9 bilood la bixiyana ma la qaban karo maadaama aan la qaban karin doorashada qofka iyo codka ah waxaa jirta si loo soo macaamili jiray 20 sano oo la soo dhaafay waxaa la yiraahdaa in laga heshiiyo qaab doorasheedka dhici kara 2016 sharcigan ruuxiisa hadda uu ka hadlayo waxaana sheegay xildhibaan cige saaxiibkay sharcigan dastuurka waa qoraa laakiin waxaa la isla gartay waxaan rabaa inaan hal arrin muhiim ka dhawaajiyo Soomaaliya waxay hadda ku degan tahay waxa weeye qor isu dhiibka siyaasadeed waxaa la yiraahdaa peaceful transition of power si nabada in xilka lagu kala wareego dalal aad u badan yuu ka qasan yahay xil kala wareego hadda waxa ka waraysan Ethiopia waxa meesha laga dhawaajiyay Rwanda inay meel fiican marayso laakiin inaa ogtiin in kala moogay madaxweynaha Rwanda wax walba qabtaba xukunka si uu wareejiyo ilaa ilaa hadda maalin dhaw dastuurkiisu furtay ka Uganda dastuurku u furan yahay meelo badan oo adduunka kamid ah waxaa lagu heshiilayaa qaabka xilka loo wareejiyo haddii lagu heshiin waayo qaabka xilka loo wareejiyo annagana aan nahay dad very vulnerable hubku wali iska yaalo qabyaaladu sidaas ay rambant u tahay kuraasta la iska wada sugaayo waxaa imaan doonta in miinis kale oo xilka la isaga wareejiyo uu yimaado doodeena waxay tahay marka war si sharci ah madaxweynaha waxaa loo siiyey mandate xildhibaankana waxaa loo siiyey mandate waxaa laga yaabaa in aad dadka madaxooda ugu guuxayso baarlamaanku xilka waa kororsan karaa baarlamaanka markaan soo gelaynaaba muddo laysiiya aniga 4 years 4 sano wixii aan ku qabanayo xuquuqda dadka ku difaacayo wixii sharci ka qayb galayo 4 sano laga rabaa wixii intaas ka badan waxay noqonaysaa su'aal baa la weydiiyey oo ku saabsan ra'iisul wasaarihii rabay doorasho in la qabtana waa rideen madaxweynihii extension ka rabana waa idin joogaa horta ra'iisul wasaaruhu wax qorshe ah oo ama shaqo ah ee uu ka qabtay doorashooyinka ma jirin taas marka shaqada hadduusan qofku qabanin shaqadiisa loo eriyay shaqo xumadiisa waxaa soo haray madaxweynaha aniga waxaan taaganahay haddii madaxweynuhu extensionka waqtigiisa uu dhamaado wax waqtiga u haray male annaga madaxweynuhuna dad guryahooda joogaan noqonaynaa filla Soomaaliya ruuxeeda waxay isku bedelaysaa guri la degan yahay filla Soomaaliya waxay filla Soomaaliya ku tahay mandate-ka timing-ka oo time kale waa mahadsantihiin aad mahadsantahay taagan aadin raalliga xildhibaan luulinan horta waxaan leeyahay xildhibaanadu waa hays kala gureen oo 2 group ha noqdeen ama 1 group ha noqdeen ama 10 group ha noqdeen horta annaga xildhibaano waa laakiin halkan waxa loo taagay waxa waaye xildhibaan iskariin xisbi wadax ka yahay xildhibaanadana xisbigu ka socdaa marka baarlamaanka laga yimaado waana ku faraxsanahay siyaasadda xisbiyada in xildhibaanadu ay wataan oo qof walba aragtiisa fikirkiisa uu ka hadlo waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho horta hadday noqoto in doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo waqtigeeda way ku dhici insha Allah ilaahay idinkiis dastuurkii sharcigaana faraya maxaa yeelay sharcigii doorashooyinka la ansixiyey kii xisbiyada la ansixiyey haddii xildhibaanadu doorasho kale aysan u qarsooneyn doorashadii la isku ogaa ee sharciyada loo ansixiyay hadday dhacayso raalliya laga yahay systemku hadduu sii kordho oo dhowr bilood uu sii qaato kolley waxay la tahay wax shaqo socotaa la dhihi karaa ciddood ka keeni kartaa runtii ma jirto extensionkana hore aan fikirkii ugu dhibtay runtii sharci maaha waa sharci darro waaye marka waxaan rabay inaan wax yar aan xuso horta waxa xaqiiqa dawladdu iyo labada aqalba inay shacabku ogaadaan dadkuna ogaadaan ani aragti ahaan ka xisbi ahaan inay mas'uuliyadda loo igmada ay ku fashilmeen waxaan saa u leeyahay waxaa waaye waqtigii maanta oo gabagaba ah oo maanta la taagan yahay xukuumadda waa sidaa xildhibaanadu waa sheegay mas'uuliyadda loo igmada way ku fashilantay waxaa iyadaa laga rabay doorasho qof iyo codse ku dhici lahayd inay ka shaqayso kamaysan shaqeyn waajibkeedii dastuurigaabaa la mariyay xukuumadda madaxweynuhuna waa ninkii qofkii dalka ugu sarreeyey waaye sharci ilaaliyihii dalka waaye isaga laftigiisa hadduu sharciga ilaalin waayo magaxumu waddanka uga tegayaa waxaana adkaan doonta siyaasaddana dib ugu soo laabto ba adkaan doonta maxaa yeelay jacaylka loo qabayo kalsoonida shacabku uu qabay habeenkii la doorto la isugu soo baxay hadduu ka miro dhalan waayo dabcan kolley waqti badanna uma harsana laakiin fursado jaanisyeer waa haystaa hadduu ka faa'iidaysan waayo waxay la tahay muhiim ah waa fashilmay siyaasaddana waa adkaan doonta si ummad Soomaaliyeed u aamini doonto marka horta waxa in la isla ogaado u baahan tahay dalkan wuxuu u socdaa doorasho qof iyo cod ah
waddo kasta iyo jid kasta uu ku marana waad iska dareemi kartaa waddanka doorasho qof iyo cod hore ugama aysan dhicin dadka hadda xisbiyadii baa ku cusub markaad meelaha qaar tagtid macnaha xisbiga qofka inaad fahansisid baa waqti qaadanaysa marka dhibaatooyin iska jira waay laakiin hal mar haddaynu gallo doorasho qof iyo cod ah oo xisbiya doorasho lagu galo mid muhiimad maayo dadku dhan inay codeynayaan dadka markaa meelaha amniga ka codeyn ka tusaale 17 degme xamar macid baa sheeke ku jira in doorasho cod iyo qof diyaar u ahayn marka shir dhacayo jidadka waa la xidhaa jidadka intii la xidhaa qof walba la baadha codkiisu dhiiba uuna ka soo baxa way dhici karta doorasho qof iyo cod waqtigeeda ku dhici karta haddii loo diyaar garoowa deegaanada la haystay siyaasadda dhulka siyaasadda ku maqan iyo dhulka mataqaana argagixiso ka dagaalamaysa xal baa loo helayaa haddii caasimadda la haysto caasimadda labaad bad qabta iyadoo doorashada lagu qabanayo marka taa horta ay shaki isgelin laakiin dowladda la rabay inay shaqada qabato dadkana ay fahansiiso baa meesha jirin oo 3 sano dadka loo goynaysay marka waxaan rabnaa waxa waaye xildhibaanada aan ka codsanayna waana jeclaan lahaa inaan ogaano xildhibaanada laftigoodu rabitaanka ku aada haddii waqti ku darsasho xanta hadda socota aysan dhici karin xalka xildhibaanada u go'aansan inay iyaga laftigooda intay dood galaan cod isu qaadaan cod u kala baqaan waxaan wanaagsan sida dastuurku tilmaamayo laakiin waxaan mar walba aaminsanahay waa in sharciga la ixtiraamo sharcigu sameeya kana mataqaanaa maxay ahayd dalku dhan lagu hogaaminaya maxaa yeelay madaxweyne wixii madaxweyne ugu yahay waa kaa waay wasiirku wuxuu wasiir ugu yahay waa dastuurkaas baarlamaankuna xildhibaan ku yahay xasanad ku leeyahay waa dastuurkaas waa haddii dastuurkaasi meesha ka baxo waa wada sinaanaynaa waana la sinaanayaa isku noocna waa la ahaanayaa xildhibaan hore waxaa la noqon doonaa mataqaanaa maxay ahayd xildhibaanadii hore la odhan doonaa haddii waqtigeeda gaadho laakiin waxaan ku soo gabagabanaya adoo iga raalli ah oo aan raba hadalkii inaan kusoo aan afmeero ku darshasho xisbiyadu marnaba ma ogolaan doono marna ma yeeli doono muddo kordhin inay dhacdo waad ka soo horjeednaa taas laakiin maxaan diyaar u nahay waxaan diyaar u nahay xal kasta oo dalka iyo dadka iyo shacabka lagu badbaadinayo jiritaanka qarannimadana lagu ixtiraamayo waxayna ku imaan kartaa in miiska wada hadalka la isku yimaado oo xildhibaanadu iyagoo xildhibaanadooda ah ay aaminaan aragtida iyo ra'yiga bulshadaas inay la qabaan maxaa yeelay waqtigii la rabay doorasho in la qabto haddii ay dhici weydo ay waqtigeeda dhaafto waa in si guud loo wadato annaga haddaan xisbiya nahay maxaa adduunka xisbiyadu ay awood u leeyihin doorasho haddii laga hadlayo waxaa ka hadla dowladda markaa jirto xisbiya iyo xisbiyada cid kaloo ka hadlaysaa ma jirto aad u mahadsan tahay su-aashan waxay ku saabsan tahay xildhibaan zakariya wax door ah ururada bulshada rayidka ah ma ku leeyihiin haddii dowladda federaalka ah iyo xubnaha maamul goboleedyada iyo xitaa maxaa la yidhahdaa xisbiyada siyaasadeed ay ku fashilmaan in ay gaaraan heshiis siyaasadeed oo wax ku ool muxuuse noqonayaa doorkooda waa mahadsan tahay marka ugu horeysa horta waxaan rabaa inaan idiin sheego doodahan oo kale waa la isku kululaadaa mar haddaan la isfeerin oo feer dhicin caadi weeye waa in loo dulqaataa mogtahay mushkiladana haystaa waxa weeye waxaan rabnaa wax walba inaynu ka dhigno muxuu ahaa no dadku waa doodahayaan sida wejigeenu u kala duwan yahay ra'yigu u kala duwan yahay ceeb maaha aniga xildhibaanku saaxiib baan nahay haddaanu xoogaa ishadahadallo dee haddaanaan isfeerin inta kaleo dhan waa mubaax waa qodob laakiin feer mamnuuc weeye arrintan xisbiyada iyo ururada bulshaduba waxay ka mid yihiin qaybaha bulshada soomaaliyeed siyaasadda iyo activity-ga iyo horumarka ku mashquulsan dadka intiisa kaloo dadweynaha waxay ku mashquulsan yihiin qof walba dantiisa waxay ka mid yihiin 12kii barka markaad muxuu ahaa statisticada oo aan raba hadda inaan xoogaa yar contribution idinku ziyaadiyo arrintan marka aad research ku sameynaysaan ilma ariyaalo waxaad samaysaan hypothesis testing null hypothesis iyo alternative hypothesis doorasho ma dhici kartaa haddaysan dhici karto muddadeedii ma ku dhici kartaa haddaysan dhici karinse maxay u dhici weyday labadaas yani moogtahay wax lagu kala baxaa jira annagu haddaan muslim nahay waxaa la yidhaahdaa fain tanaasactum fii shayin baa ilaahay yidhi faruduuhu ila allahi wa rasuulih haddaynu taas u celinno waa guulaysanaynaa waxaa ku soo darsamay scientific baa lagu kala baxaa idinku roolkaad leedihiin maalan hadda su-aasha ay weydiisay lafteeda la xiriirtaa hay-adaha baarista cilmi baarista waxa weeye inaad si cilmiya inta u baartaan dadweynaha weydiisaan madaxweynayaasha gobollada weydiisaan xildhibaanada weydiisaan sida hadda annaga noo weydiinaysaan xisbiyada weydiisaan dabeedna aad soo samaysaan qaab cilmiyeed refined ah oo statistical data ah markaas baa go-aan la gaari karaa inkastoo aan ogahay qabiilku mar walba inuu indhala yahayo
wixii cilmiga la gaaro xataa uu leeyahay waxba kama jiraan tayada ay socota roolka ugu weyn waxaa ku leh doorashada iyo qaabaynta iyo wacyigelinta dadka Soomaaliyeed in doorasho la aadayo oo haddii alla ku ron yahay dadka laftiisii baa 60 sano ugu dambeysay doorasho dadweynaha wacyigelintooda ugu dhib badan doorashada tan soo socota marka roolka uu leeyahay xisbiyada iyo ururada bulshadu waa taas labo roolka labaad ay leeyihiin ama dowrka labaad ay leeyihiin afkaan baasba ilaa inuu kharibay afkaan aan ku hadalnay dowrka ugu weyn ay leeyihiin waxa weeye inay caabiyaan ama ku ciriiriyaan ama pressure gareeyaan dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka in sida saxda ah loo aado doorasho oo aan waxba lagu darsan oo aan haddii duruuf timaado waa meesheeda laakiin duruuf la yaqaan oo qof walba u jeedo legitimate laakiin haddaan duruuf legitimate iman doorashada waqtigeedii qof iyo cod lagu qabto weeye waxaan aaminsanahay dalka intiisa badan in doorasho laga geli karo meelaha qaarkoodna loo samayn karo istinaa ama wax la yiraahdo muxuu ahaa ka reebid duruuf la tixgelinayo khaas sida waqooyiga oo kale مثلا sida meelaha aan amnigu ka jiran oo kale dadkeenu hadda waxay u badan yihiin magaalooyinka lagu soo qaxay baadiyaha aad baa loogu yaryahay hadda og tahay metropolitanska magaalooyinka ah kaliya xataa haddii doorasho ka dhacdo waa sax waxaa ugu muhiimsan labada xabo ugu muhiimsan midna waa realist midna waa idealist realist waxa waaye maxaa suuragal ah idealistna waxay ka hadlaan maxaa fiican aniga marka horta maxaa suuragal ahay realistan ka ahay siyaasadda waxaan rabaa inaan u laabto oo hal qodob aan sheego civil society-ga dabcan dee baafo inuu ka jawaaba ficneedo waaba nala joogaa xoogaa laakiin wuxuu ka kululaaday baarlamaankii oo meeshaan kasoo buuqday uu ka kululaaday marka in asaga jawaab ahaan loo siiyana waa jeclaan lahaa laakiin waxaa jirta 2016 doorashada markii la iska rabay qodobkan dastuurigaa siduu xildhibaan ciga ka dhawaajiyey waa yaalay dad badan oo baarlamaanka ka midana waxay ku doodayeen inaan iska joogno laakiin madaxweynuhu markaas jiray iyo xukuumaddiisii waxay sameeyeen waxa la yidhaha vision 2016 waa la iswaraystay dadaa loo wacay waxaa la yidhi 2016 haddii doorasho qof iyo coda dhici weysa maxaa dhici kara aniga waxaan ka mid ahaa dadkii markaas joogay dowladda waxaan sameynay waxa la yidhahda national consultative forum golaha wada tashiga waxaa ku jiray dowlad goboleedyada dowladda federaalka ah iyo bulshada rayidka ah iyo odayaasha dhaqanka waxaa la qabtay oo shirkiisa koowaad la qabtay November 2015 waana shirka oo ka dhashay in la aado doorasho dadban oo ka duwan midii 2012 iyo wixii ka horreeyay la qaban jiray ee ah hal qof inuu waxa saxiix horta waxaa la rabaa marka aniga runtii realist maadaama aan ahay doorashada qofka iyo codka uma jeedo sababtaan u jeedina idin sheega gobolka Banaadir ee hadda uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha Suleymaan Soma Cabdiraxmaan waaba samigayaa Cabdiraxmaan uu ka dhawaajiyay gobolka Banaadir ma doorasho laga qabto oo degmada Hodan iyo degmada Kaaraan dadkeeda horta gudoomiyaha degmada ma la soo doorto waqti waxa la rabaa wax inay tijaabo yeeshaan dowladda haddii la rabo hadda ka hor waxaan doonnay markii aan wadnay consultative forumkaas madaxweyne Cabdiweli Gaasa wuxuu qabay in nidaamka 4.5 ka laga guuro doodiisu waxay ahayd ma ogolin 4.5 waa in degmo loo guuro madaxweynaha doodii aan uga adkaanay oo waagaas ku doodnay waxaa ka mid ahayd councilka Garowe ka dhisan wuxuu ku qaybsan yahay 4.5 Garowe oo councilka ma aha Puntland baarlamaanka Puntland ma ka hadlay Garowe councilkeeda waxaa ka bixin weysay 4.5 inaa ku qaybiso dowladda Soomaaliyeedna waxaa rabtaa in 4.5 laga bixiyo macnaha waxaan ka wadaa moogtahay theorieska oo realistaha oo runta ah oo la taaban karan raba inaan idin la wadaago gobolka Banaadir doorasho ka qaban waayeen xukuumadii dhacday iyo madaxweynaheedu waxay rabaan inay ii sheegaan Soomaaliya waxaan ka qaban karnaa qof iyo cod oo kiyaala caaga la isu galiyo way warkaas marka de oo kiyaala caaga waxaa la dhahaa lo'da hadda waa aragtay lo'da waa la xareeyaa waageer waa daaqi jirta hadda waa la xareeyaa marka coos qalalana loo keenaa marka cooska qalana lo'da waa ka didaysaa oo kiyaala cagaarana loo geliyaa lo'da marka annaga de oo kiyaalihi cagaarayd ma nihin ma ogtahay waxaan rabaa meeshaan horta doorasho qof iyo coda in this term oo ku eg November ani waxaa la soo doortay November 2016 oo ku eg November horta ma dhici karto kow haddii aysan dhici karin waxaa laga rabaa haddii consultative uu ku yimaado oo dowlad goboleedyada bulshada rayidka ah wixii inta la is waraysto la yiraahdo
new mandate fiicana ka muuqdo ma ogtahay haddii aan dareemi lahayn madaxweynaha aan ka dareemi lahayn niyad sami oo xukuumadda aan ka dareemi niyad sami iyo shaqo iyo in orod uu jiro all businesska ku saabsan doorasho qof iyo coda 2020 bisa la bilaabo golaha sharciga waxaa la keenay 2020 gudoomiye guddiga doorashooyinka qaranka waxay timid 2020 qayla dhaanta dhan waxay isla bilaabatay 2020 hadda ka hor marka maamaha jirto la yiraahdo ejigay jiifka kaaga horreeyay shaqadan hurdaysid hadda ka hurdaysid hurdaa kaaga horreysay waxaa la rabaa in 2018 waa dhagaysateen ama 17 jawaari oo hadlaayoo leh wixii dhici karaa hadda aan ka doodno 17 bay ahayd Soomaa jawaari waxaa loogu adkaysan waayey oo xukuumaddeedu u raacadaysay oo madaxweynuhu u dhibsaday doorashadan uu ka hadlay madaxweynahana waxaa la rabay the most important task u yaalla waxay tahay kursiga uu ku fadhiyo ee loo doortay subaxa uu wareejin lahaa inuu ka fikiro waa inii sheegay vision 2016 waxaa la qoray 2014 milestone soo lahaa waxaa laga rabay 2015 aan u imid aniga guddiga doorashooyinka qaranka in la dhiso anaa dhisay waxaa la rabay istaydyada in la dhammaystiro galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland la dhiso waxaasoo dhan dastuurkay ku qoran yihiin haddii madaxweyne xasan sheekh iyo prime minister cumar cabdirashiid ay dhihi lahaayeen doorasho qof iyo codaan aadaynaa iyadoo all taskis aan la qabanin ma dhacdeen reality ma ahaateen hadda waxaa la mid ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka waxay ka sheegtay 70 milyan oo dollar loo baahan yahay si doorasho qof iyo coda loo qabto lama hayo waxay baarlamaanka ka hor sheegtay oo sharciga doorashooyinka ku qoran finger iyo printerka oo biometric in la iska rabo hal qof oo idinka mid oo biometric loo sameeyey ma jira hal xisbi oo la diiwaan geliyey ma jira gudoomiyaha cabdiraxmaan wuxuu ku mahadsan yahay dowladda xisbigeedii oo labada nuun lahaa ma diiwaan gashan yahay lama samaynin aad u maasantahay labadii nuunna hadda waaba kala foqsadeenba midba qaybtiisoo la go'a waqtigaa dhacay aad u maasantahay aniga waxaan rabaa markii de fiiri realistically aan hadlaa wixii suuragal ah Soomaaliya ha loo sameeyo hadday dhici weydo maxaa dhacaya marka haddii kursiga waa iska jecel u yiri aniga horta inaan xildhibaan ahaado waa jecel waan ogtihiin oo galmudug kuraasta ugu kululaata oo kursi qabo ma yaalaba laakiin war aniga in lay bedelo maxaa problem ku jira kursiga waaba imaanaya in adeerkii la keenaa ama nin kale oo Soomaaliyeed qaadanaya anna waa shaqooyin badan oo qaban kara jira madaxweynuhu waa mahadsan yahay hadduu kursiga waayo madaxweynayaal hore fadhiyo waana ba sheegeen maalin dhaweey hadduu helana dadkan Soomaaliyeed u sacabtumaya dadku u sacabtumayay oo asagu uu darbiyada ku xiray ha soo aamino mar raba aad u maasantahay cabdiraxmaan isla su'aashan ku saabsan doorka ururada rayidka ururada bulshadu rayidka ay xaaladdu meeshii marayso way arkaan cidna ugu warrami mayso waxa la isku hayaana ma aha madaxda siyaasiyiinta dana gaar iyagu shakhsiyan inay go-aan ka gaaraan ay leeyihiin waxa la isku hayaay waa rabitaanka shacabka waaye waa jiritaanka shacabka sidii shacabka iyo dalka loo hogaamin lahaa ayaa doodu ka taagantaha marka hadda waaba idin fiican tahay raaliha layga hado aad baan u cod dheerahay haddaan hadlo waa siira qabanaya marka waxa la isku hayaa waa jiritaanka waa in shacabku ay wax doortaan waaye dadku inay fahmaan baa aad u fiican haddii lagu yidhi xildhibaankaaga waad soo dooranaysaa haddii lagu yidhahdo guddoomiyihii degmada kumatalaya waa la dooranaya oo haddii lagu yidhaahdo doorashadaas kadib kuwa ku xigaana madaxweynaha dalka hogaaminaya dooran doonta macnaheedu waxaa waaye waa xuquuqda idinku aad leedihiin shacabku leeyihin waxaa laga doodayo marka ururada bulshada rayidka waxaan runtii aan ku dhiirigelinayaa siyaasadda iyagoo cidna dhinac saarayin ama dhinacna aan mataqaana la safanayo inay siyaasadda kasoo qayb galaan oo ololaha ay qaybtooda ka noqdaan oo mar walbana ay sharciga ay waxa ku qoran ay mar walba ay dhiirigeliyaan oo u doodaan taasaan ururada bulshada aan ku talin lahaa wax yar haddaan aan community aan wax yar baan sii raacsanayaa doorashooyinka hadda dhacay ee dalka ka dhacay ee lasoo dhaafay waxaa kuwa heshiis laga yahay bay ahaayeen waxaana heshiis ku ahaa dowladda kumeel gaarka madaxweyne sheekh shariif madaxweynaha ka ahaa qaabkii loo soo dhisay waad ka wada warhaysaan dowladdii xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu ay mataqaana hogaaminayeen qaabkii loo soo dhisay waad ogtihiin waxaan u malaynaya 134 odayataan aan khaldanayn ayaa soo go'aamiyey doorashadu ku yimaanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud baarlamaanka soo dooranayay baarlamaanka hadda madaxweyne dowladda madaxweyne farmaajo madaxweynaha ka yahayna waa qorshe ka qurux badan bay dowladdii markaa jirtay ay qaaday oo waxa la erga 51 inay xildhibaanka soo doorto kadibna ay madaxweynaha soo doortaan tallaabooyin hore loo qaado aad u wanaagsan bay hayeen waxaan ognahay baarlamaanka tobanaad markii la soo dooranayay hawsha ugu weyn ee loo doorto waxay ahayd
in dalkani ay gaarsiiyaan doorasho qof iyo coda iyo xukuumadda markaas imaanaysa waxaan ognahay xukuumaddii ka horeysay xukuumaddan madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorasho dadban dhibaato fara badan laga soo maray isteedyada qaar waxay diidinaayeen in doorasho dadban la aado ee doorasho qof iyo cod la aado sida puntland oo kale waxaan ogeyn in puntland maalmo fara badan lagu qancin waayo in doorasho 4.5 loo laabto ay taagneed doorasho soomaaliyeed hal aado shirkaas waxaa ka dhashay oo madaxweynaha iyo hadda nagala wasiirka hore arrimaha gudaha Dr. Odewa waxay ballan qaadeen in xukuumadda soo socoto ay dalka gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah baarlamaanka oo muddaxileedkiisa ka dhiman yahay 3 bilood wax ka yar xukuumaddana ay ka dhiman tahay muddaxileedkeeda 6 bilood aana ilaa hadda aynan jirin qabanqaabo doorasho haddii la dhaho 4 sano waa inay doorasho dhacdaa ay taagan yihiin xildhibaanada qaar yaa la dooranayaa maxaa doorasho noocee ay dhici doonto doorasho dadban haddii la dhaho odayaasha dhaqameedkii ma diyaarsan yihiin meel ma la geeyey ma loo diyaari waa maya marka dalkani waxaa rabaa inay noo sheegaan hooshii lidin doortay ahayd inaad dalka gaarsiisaan qof iyo cod ah maadaama aad qaban weydeen hadda marka maxaa inoo sheegaysaan in mid dadban loo laabtaa mise mid waaya aniga su-aal muhiim aan qabaa laakiin waxaan rabaa in yar in layga raalli ahaado oo aan ka hormariyo wax yar oo ah dareenkii political organizations su-aasha hadda meesha ku taalla waxay tahay political organizationska diyaar ma u yihiin inay doorasho galaan sanadka soo socda 2020-2021 horta political organization legal ma jira oo register garaysan oo codad leh oo maaragtay meel walba register garaysan oo Soomaaliya oo dhan ay u dhan tahay mid qof ahaan naqaana anaga hebel kaliya la yaqaana political organization meel walba jooga oo Soomaaliya oo dhan dhalinyaradeeda ay wada tagi karaan oo iska register gareyn karaan oo sharciga guddiga doorashooyinka ay u ansixiyaan maanta ma jiro mid walba oo ku meel gaar waa mid labaad anaga laba aqal oo baarlamaan aan leenahay oo marka waqtiyadaan oo kale la soo gaaro noqda laba aqal oo aan shaqaynaynin oo sidaan oo kale foornimada la isu bedelo laga doono extension haddii la rabo in la aado extension wuxuu ka go'aa baarlamaanka political party kama go'o madaxweynena kama go'o aniga su-aasha aan rabo markii inaan weydiiyo waxay tahay goormaan ka baxaynaa waxaan guddiyada baalahan political organizationskan halka qof ah aniga waxaan rabaa inaan ku biiro mid ka mid ah political organizationada kii aan ku biiri lahaa diyaar ma aha umana jeedo goormaa laga baxayaa siyaasadeed ee halka qof u wato su-aashaan weydiinaya waxay tahay imtixaan marka la qaadayo hadda jaamacad la aadayo ama dugsi sare la aadayo ama mid hoose 50% qofki gaaro waa dhacaya 51 waa baasaya haddii la leeyahay hala intixaamo political partieska oo dadka say u register gareyn lahay sharciyada loo baahnaa ha buuxiyeen muddana hala siiyo baarlamaanka ha lagu celiyo su-aashaan dadka kale yaa la wareerinin baarlamaanka go-aan ha ka gaari aad u mahadsantihiin marka su-aasha ugu aan rabo inaan weydiiyaa waxay tahay xildhibaan Sikriye wax badan waxaa muujisay qabiilka soo horjeedo waxaa noo muujisaa xamaasad ah 30 sano lagu soo jiray nidaamkan qabiliga 30 sano lagu soo jiray nidaamkan qabiliga waa in laga gudbaa su-aasha ku weydiinaya waxay tahay ayadoo wadankan maanta ku noolnahay deegaanadiisa oo si beelaysan loo degan yahay wacyiga dadka oo beelaysan yahay wax walba ay beelaysan yihiin sida kaliya loogu bixi karana ay tahay in oo xisbiyada hadda si wanaagsan oo qurux badan maxaa la lahaa ay ugu qayb qaataan doorashada sidaa darteedna maxaa la sidaas looga baxo oo ayaga aysan beelaysanaan su-aasha ku weydiinaya waxay tahay maxaa diidaya xisbiyada inay iyo nidaamkan beelaysan in la is aqbalsiiyo oo wax qurux badan oo beel macnaha oo ahayn wax beelaysan oo Soomaaliya oo dhan ay leedahay hadda waxaa ognahay tusaale ahaan oo kale maxaa la dhahaa xisbiga ka kale inuusan ka maarmaynin beel midka galmudug oo ka sidoo kale su-aashaada way caddahay waa soo kooba hal mar haye inuusan ka maarmaynin maxaa diidaya marka in fursad la wada siiyo oo xisbi ma aaminsan maanta inuu jiro xisbi oo xiiso u qabo inuu beelaysnaado laakiin fursadaas in la siiyo maxaa diidaya sidoo kale su'aal kale raacsan lahaa waa hal su'aal leedahay su'aal loogu talagalay aad u mahadsan tahay waqtiga ilaalinayna xisbiga shacabka Soomaaliyeed aan gudoomiyaha ka haya xafiiskiisa wuxuu ku yaalaa ka soo horjeedka taalada sayidka boorarkiisa arkaysaan inaan noo timaado waan jeclaan lahayn oo ku tusno dadkaan diiwaan gelinay iyo qaabkaan u shaqeynay iyo qaabkaan u shaqeyno shahaadada ku meel gaarkan haysanaa sharcina waan ahay 9 gobol qof rasmi ku noqon lahaana waan diyaariyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka furayaasha xafiiskan u geeyay waxaan ku sharciga waan soo
buuxiyey xafiisyada soo furo dowlad goboleed adigu soo xalay marka xisbiyo sharciya oo diiwaan gashan oo shaqeeyey oo dalka dhan gaaray waa jiraan inay xarumaha boqotaan rajeyna insha Allah si aad u soo ogaato su-aashaas jawaabteedu way caddahay imbagaasi 2009 imbagaasi 2004 markii la soo doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo xildhibaanadii waxaa dastuurka ku meel gaarka ku qoraa 2009 in doorasho dalka la gaarsiiyo qof iyo cod ma dhicin 2012kiina waxaa ku qoraa in la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ma dhicin 2016kiina waxaa ku qoraa in la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ma dhicin maxaa dhacay marka waxaa dhacay xildhibaanadii talada hayay markaas oo iyo dowladdii ilaa ay wareejiyeen xilka waa la sugay cid aan wax ku darsanna ma jirin wax ku darsigu waa kala labo midna waa mid aad og tahay in qofkaani rabo inuu kursiga isaga fadhiyo oo maaragtay ku dhaga adaygo midna waa mid technical problem jiraan marka saddexdaa waqti ma dhicin hadda marka hadday dhici weydo macnaheedu waxa weeye failure baana kulligeen waxaan kaloo idiin sheegayaa dowladdan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo golaha wasiiro iyo xildhibaano kulligood shaqadii laga rabay inay gafeen oo ahayd inay gaarsiiyaan 2020ka dowladda Soomaaliya qof doorasho xilka ugu weyn xil haleynta ugu weyn baarlamaanka qaatay waayo dowladda kumay cadaadin inay u yeeraan kumay cadaadin inay la xisaabtamaan kumay cadaadin inay timetable u sameeyaan ayaga xukuumadda dowladda baarlamaanka dadka iyaga hadda meeshan taagan oo baarlamaanka kamid ah annaga mas'uuliyadda koowaad annaga qaaday farmaajona ma qaaday xasan khayreena ma qaaday hadda aan sheegaya maxamed waa runtiis xisbi kaamila ma jiro hadda laakiin xisbiyo waxaa jira ku sii socda process kaamilnimo ah oo ilaa levelka labaad la gaaro waxbaa ka dhiman xisbiga waxaa kaloo naga dhiman inaanu nahay xisbiyo ciiddaa ka badan oo aan China oo kale xataa yeelan karin oo 2 bilyan oo qof oo ah Pandora box ah waxa loo baahan yahay inay aruuraan waxaa dhiman wacyigii shacbiga Soomaaliyeed in kastoo ogaada dowladaha ayaamahan inoo dhalanayay iyo shacbigu laba waadi bay u kala socdaan maqshir iyo maqrib dadka Soomaaliyeed anu calolaan ka soo bilaabay socod xisbi baan ka soo furay waxaan ka soo furay xaafuun waxaan ka soo furay baylo waxaan ka soo furay qardho waxaan ka soo furay gaalkacyo galdugob intaasaan ka soo furay hadda 3 bilood u dhameysay dadku doorashay rabaan dadku dowlad bay rabaan dadku dowlad beelaysan ma rabaan calaamad tiro badanna ma rabaan waxay rabaan hal dowlad oo Soomaaliya oo xukuntay rabaan haddaba rabitaanka dadku mar hadduu saa yahay sarbay baa la qaaday garowe iyo qardho iyo oo suuqa ah ayaa qaaday wuxuu leeyahay anu doorasho qof iyo codaan rabaa ibda binafsika wax la yiraahdo jirta adiga xisbi ku biir aamin inuu axzaabta socon karto haddii adiga ku biir oo adiga banaanka la taagnaato tiraado axzaab ma jiraan maba jirayno moogta xisbiguna sidiisaba waa dad isu tagay intiinaan hadda meeshaan joogto maanta axzaabta halkaa joogta iyo kuwa kaloo maqankaa ka jeclaataan horta gala kow labo xisbigu inuu fiican yahay in kale waa in election la galaa haddaan election la gelin xisbigu wixiisa waa iska manifestiga waa in la dhegeysto loogu codeeya markii naloo codeeyo oo percentage lasoo helo waa ogtihiin waxaa jira wax oo percentage laga rabo inaad baarlamaanka ku tagto 5% xildhibaanada ka yar qofkii hela baarlamaanka ma tegi karo axzaabta marka hesho 5% markay isu tagaan hadhow sidaas ay ku helayaan Soomaaliland waa ka waraysan hadda 3 xisbiya ka jirta maahan inay perfect yihiin maahan inay qabiil ka maran yihiin dadka Soomaaliland ka warhaya waa yaqaaniin laakiin axzaabta loo ogol yahay inay doorashada ka qayb galaan waa 3daas xisbi waxaa la rabaa marka inaan intaan is aamino doorashada horta ku galno kadib hala gaaro taas marka axzaabtu markay tayoobi karto waa markaas maxamed taas intaasan ka leeyahay waxaa soo hartay waxaa la yiri in doorasho la qabtaa laydinka rabi baarlamaanku waa sharci darijiye gacmaha fulinta maxaa loo bixiyay annaga gacmeenu waa xukuumaddii wax shaqo ay ka qabatay lama arko doorashadii haddaataan sheegay qodobadii 1 2 3 4 5 sheegay dabcan waxaa laga dhawaajiyo kale baarlamaanku inuu shaqadiisa gabay baarlamaanka waxaa ka war haystaan subaxii la qunfulayay annagoo taagan oo leh yaan la qunfulin oo guddoomiyihiisa yaan la ridin yaa madaxweynaha iyo prime ministerkii hadda xilka ka tegey ay si sharci darro ah weliba duhur cad ku rideen subaxaasaa horta baarlamaanka ugu dambeysay wixii ka dambeeyey kooxo iska jooga oo dee madaxweynaha iyo prime ministerka la qaraabta iyo kooxo qayla dhaamiyo sideenoo kalaan aan kala ahayn
marka horta baarlamaanku sidiisaba awoodda fulinta haddaatay aad buu umahadsan yahay xildhibaan cige madaxweynaha waa ilaaliyaha dastuurka waa madaxweynaha asagaa waxaa la rabaa inuu baarlamaanka ixtiraamo exercisekiisa ixtiraamo waxaa ka warhaysaa madaxweynaha daraad prime ministerka markuu iska riday 7 daqiiqo inuu ku rido go-aan ku gaaro wuxuu aamini waayey in mooshin la keeno 5 beri laga doodo xeroosaadka la maro wixii la maro nafta ku simi wey cidda dastuurka dalka ku ciyaaraysa waa madaxweynaha baarlamaanka asagaa xiray prime ministerka asagaa xiray extension-kana asagaa raba anigu kulleyba lama rabo ninaan ahay marka intaas marka laga yimaado shaqadii laga rabay dowladda labada xildhibaan waa mahadsan yihiin shaqadii laga rabay iyo cabdiraxmaan waxaan isla waafaqsanahay dabcan extensionka iyo artiisa kale waa kala qabnaa laakiin waxaan isla waafaqsanahay horta shaqadii qof iyo cod in loo qabto la rabay lama qaban meesheedii aan joogaa aniga waa rabaa roobaa lagu waayay madaxweynaha maalin duusamare markuu ka hadlaya waa maqlayseen wuxuu yidhi legacy inaan ka tagaan raba oo legacyga 3 sane bar uusan ka shaqaynaynin oo uu lahaa xukuumaddii ugu fiican baan haystaa oo kan uu lahaa haddii 3 sane bar uu subax soo baraarugay annaga ma diyaar u ah inaan legacyga asagaa la rabay markii hore inuu dadka dhegaysto dadka soo dhexgalo dowlad goboleedyada dhegaysto waxaan rabaa inaan idinku soo khatimo oo su-aasha ugu muhiimsan oo ah qof uu weydiiyo ah yaa xaggee doorasho laga raadinaya doorashadii horta madaxweynuhu waa soo ogolaaday inaa ogtihiin aan kala moogin dhuusamareeb ku soo ogolaaday dhuusamareeb 3 bisaa dhiman processkii laga heshiinaa ma ogiye no extension haddaa akhriseen waqti kororsi ma la ogola madaxweynuhu waa fadhiyey meesha communiquega lagu akhrinayo 2 waa in laga heshiiyaa doorashada 5 dowlad goboleed ay ku jiraan waa doorasho dadban waxa la yidhaahdo doorasho toosan madaxweynaha iyo prime ministerkiisiyaa laga rabay waa ka shaqay waayeen ayagaa dhuusamareeb isku soo canaanto ayagoo isgaadayay arkeen xamaray yimaadeen madaxweynuhu prime ministerka waa iska rida waa mahadsan yahay culaysuu naga fududayay inta soo harta waxaa la rabaa dhuusamareeb 3 ha ku laabto election process heshiis lagu yahana hala keeno